حسن شيخ ودرار عد بهلو دحدقي سمعدة شيخ شريف. والله ثم والله ثم والله هذا اسم جورجين واضحين. حسن شيخ وبوسكي شيخ شريف كبد الشيء شريف حسن إلى ما أنت الزيارة لما مجعبين كنت وحري وصور دعوة معه. سنة كل لبضة كل لحية طبنك وحاي أهايين مشرحين وكد حي الدجال قصة اللي يسمى رشاد الدلكة مركي لقى جوليستي لبضة ضبع وحيكون شيئين إن أي معارضان دولتي كجوليستي وهجامين مدحويني محمد عبد الله فرماجو حسن شيخ أو آمسنا إن فرماجو يا شيخ شريف أيهين صاحبه هدي أي أمي دوبان رجدي سا أي لوميسو أيها سميسو جيدشو دنكا شيخ شريف وحب وحسن شيخ كوقنعي شيخ شريف in la joogo xilligii la hadli lahaa oo aan laga aamusin dawladda oo la mucaarado si indhaha bulshada loo tuso qaladaadkeeda halkaasna fursad siyaasadeed ugu jirto sheekh shariif oo u hangal taagaya inuu mar kale madaxweyne noqdo ayaa soo jeediyay in la sameeyo madal ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadeed isaga oo uu hogaaminayo inkasta oo muddo hogaanka madasha la qabsaday cidda hogaaminaysa haddana xasan uu ka tanaasulay maadaama danta uu ka leeyahay ay ka weyn tahay intaasi xasan sheekh oo hadalkaasi u arkay fursad uu ku gubi karo sumcadda sheekh shariif ayaa durbadiiba aqbalay balse waxaa iska diiday cabdiraxmaan cabdishakuur oo weli xisbigiisa gooni u wata xasan sheekh ayaa sheekh shariif u sheegay in uu hadlo mar kasta oo ay dawladdu qaado tallaabo marka laga reebo kiiska badda oo ahayd arrinta kaliya ee uusan ka hadal dhinaca kalena sheekh shariif ayaa dhowr shir oo uu qabtay ka weeraray madaxweyne farmaajo oo la rumaysan yahay in xilliga dawladdiisa aysan dhamaysan kala bar muddo 4 sano ah ee loo asteeyay xasan sheekh isaga la yaab kuma ahayn kuleelka iyo weerarka afka oo uu sheekh shariif ku qaadayo farmaajo balse muhiimadiisa ayaa ah in shariifkii shalay ee looga bartay aamusnaanta uusan ka ahayn nasiib darro sheekh shariif ma lahayn la taliyaal ilaasho sumcadiisa oo ka joojiya baholowga madow ee uu xasan sheekh maxamuud uu ku ridaayo intaa kadib markii uu xasan sheekh uu gaaray ujeedkiisa sumcad dilka sheekh shariif sheekh axmed ayuu bilaabay khilaaf ku aadan hogaanka madasha xisbiyada uu xasan doonayay inuu hogaamiyo sheekh shariif ayaa ka carooday arinta uu wato xasan sheekh ee ah in mar walba uu ka dhigto derbi sheekh shariif oo sumcadiisa ay hoos u dhacday ayaa u cararay dalka imaaraadka si halkaasi uu isaga soo dhaqo dabankii ay u dhigeen xasan sheekh iyo xulafadiisa sheekh shariif waxa uu muqdisho ku soo laabtay doorashadii madaxweyne farmaajo kadib isagoo loo arko siyaasiga ugu culus uguna afka gaaban koox gaar ah ayaa isticmaashay codkiisa kuwaasi oo diidanaa miisaankiisa siyaasadeed ee uu ku lahaa dalka kuwaasi uu ku guuleystay inay dilaan fursadiisa si iyaga ay kor ugu soo kacaan xasan sheekh oo ogaaday in sheekh shariif uu fahmay dhagartiisa ayaa degdeg u wacay shariif xasan sheekh aadan oo ah siyaasi la yaqaan si uu isna ugu shaqeysto sumcadiisana uu dilo shariif xasan sheekh aadan oo xilal kala duwan dalka ka soo qabtay ayaa looga baran inuu warbaahinta ka soo muuqdo tan iyo markii uu ku soo biiray masraxa siyaasadda Soomaaliya shariif xasan waxa uu ahaa siyaasi aamusnaanta ku maleega shirqoolada siyaasadeed oo xataa ugu baxday naanaystii caanka baxday ay ahayd shariif sakiin balse hadda xasan sheekh ayaa ka dhiganaya codbaahiye qabta shaqada loo diray sidii hore ee uu sheekh shariif u ahaa 2 sano ee la soo dhaafay